بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال هذا وصاحبي عارفة عشر خطوات ام اسود كو waxaan baran doonaa add common quick access toolbar sida loogu soo daro quick access toolbar sida common loogu soo daro waxaan kaloo baran doonaa convert text to speech ayaan baranaynaa convert text to speech ayaan baranaynaa oo inaad markaasi qoraal u bedesho cod ahaan waxaan kaloo baranaynaa sida template loo sameeyo and then auto correction okay waxaan ku hormaraynaa common sida ugu soo dari lahayn quick access toolbar file aan leenahay marka koowaad file ku dhufo kadib option tag and then quick access toolbar then speak ayaan rabaa inaan ku daro hadda waan ka remove gareynayaa si marka aan usoo daro all common aan leeyahay kadib waxaan raadin doonaa speak ayaan raadin doonaa ayaan ku darayaa marka speak waa kana click ku dheh kadib waxaa leedahay add then waxaa leedahay okay then waxaa leedahay okay and then qoraalka waxaan bedelaynaa cod aan bedelaynaa waxaan sameynaa qoraalka markaan soo gelinaynaa equal aan leenahay run formula soo gelin doonaa qoraalka kadib shift 9 shift 0 enter aan leenahay qoraalka wuu noo soo galay saa markaas codaan u bedelno inaan dooranaa kadib waxaan tegaynaa select speak select text aan tegaynaa Video provides a powerful way to help you improve your saa u voice. dejiso kaliya ayaad ku leedahay haddii hal word kaliya aad rabto in lagu aqriyo waad tegaysaa wordka kadib waxaa leedahay kaliya leedahay Video. okay qaabkee waa loo hagaajiyaa template haddii aad doonto inaad hagaajiso template file markaad tagno oo new aan doorano waxyaalaha inoo soo baxay template aa ladhahaa waxyaalahan dhan template ayaa la dhahaa mid adiga marka aad leedahay sida u hagaajisataa balaanka document ku dhufanaysaa then waxaa soo gashan doonta loogada iskuulka aad rabto ama ganacsiga iyo nambarada lagala soo xiriiray aad soo gelin doonta kadib qaab loo save garaa jirtaa qaabka loo save garanaya kaliya muhiim noo ah marka hadda waxaan soo gadanaa shape ayaan soo gashan oo tusaale shape markaan soo geliyo kadib shape waxaan ku dhex qoraa tusaalahan Soomaali ayaan iskaga dhex qorayaa and then markii la save garanaya file aan leeyahay kadib waxaan leeyahay save then desktop tusaalahan and then muhiimadu waa halkaa marka halkan hadda waxaa noo qoran waa document ayaa ku qoran waan furaynaa kadib waxaan dooran doonaa word template aan dooran doonaa adii markaa save garayso desktop ayaad ku arki doontaa marka xayeysiin inaad samayso kaliya waxaad bedeli doontaa qoraalka aad meesha ku qortay kaliya ayaad ku bedeli doontaa qoraalka cusub ayaan ku bedeli doontaa qaabkaas marka word template loo hagaajiyaa okay auto correction aan haray auto correction waxaa loola jeedaa tusaalahan haddii aan qoro enter aan dhaho waxaa soo baxay magacaas axmed aa soo baxay qaabkee loo hagaajiyaa marka file aan tegaynaa kadib waxaan leenahay option then proofing and then auto correction then halkaan aan gelinaa tusaalahan f ayaa halkaan ku qori doonaa Fatuma ayaan dhihi doonaa then waxaan leeyahay add kadib okay and then okay hadda haddii f aan qoro enter aan dhaho Fatuma ayay soo baxaysaa qaabkaas loo hagaajiyaa auto correction cashirkan halkaas aan ku joojinaynaa haddaan ugu cusub aan usoo bir. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.